بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن dhageystayaal meel kasta oo codkaygu idinka soo gaadhayo kuna soo dhawaada barnaamij suugaaneedkii ka iman jiray rugta ururinta dhaqanka iyo suugaanta ee Qalinsoor intiina hadaba dhageystayaal toddobaadadii u dambeeyay ku taxnayd barnaamijkeena waxaad ku soo maqasheen oo aynu ku soo qaadan jirnay qaar kamid ah suugaantii ay ka tageen maasiihanadii hore rakamidi toddobaadkan dhageystayaal waxaan mar kale ku milicsanaynaa mid kamid ah maansiyahanadii ugu magaca weynaa qarnigii 20aad qaybtiisii hore waa maansiyahan inta badan gayiga Soomaalida suugaantiisa si weyn looga yaqaano waa abwaan Cabdi Warsame Baanche oo Cabdigahayr bulshadu ay u taqaanay inkasta oo hadaba dhageystayaal si sugan aan loo haynin taariikhda haddana odayaasha qaar kamid waxay sheegeen in Cabdigahayr u dhashay waqti ku beegan sanadkii 1889 waxaanu dhintay sanadkii 1958 isagoo ku dhintay magaalada Hargeysa halkaas oo lagu aasay abwaan Cabdi Warsame Baanche Cabdigahayr wuxuu ahaa afmaal suugaantiisa inta badan laga yaqaano dhulka ay Soomaalidu degto marka la eego suugaantii la tiriyay waqtiyadaas uu noolaana inta badan waxa uu dhaxad u ahaa gabayo ku salaysan dhinaca qabaa'ilka iyo Soomaalida toltolka isku leen jirtay taas oo xajiin badan u yeelaysa maansadii xilligaas isaga qudhiisana maansadiisu taas ayuun bay la mid ahayd barnaamijkeenan ayaa hadaba waxaan ku soo qaadanaynaa saddex gabay oo malahaygaan isleeyahay waa kuwa ugu turxaanta yar gabayada uu tiriyay waxaana barnaamijka igu martiya abwaan Axmed Colaad Digaale Axmed Qorane oo curinta suugaanta ka sakow kaydiyay in badan oo kamid ah suugaantii ay tiriyeen abwaanadii hore waraysigina dhaxmarayna waxa uu dhacay sida tan Cabdigahayr gabaydiisu urta gabaydiisu way xadar badnaayeen inta badan gabayda xaastalna waa la qabtaa midba wuxuu ka hayaba laakiin bal maanta waxaan ku duubayaa halkan laba saddex gabay oo iyagu xadaraya lahayn xajiin lahayn oo hadii aalone gabaydiisi iska hawaalo waranka ahaa gabayga yar oo ugu horeeya waxa weeye markii Ingiriiska iyo Talyaanigu ay wadankan isku haysteen labadii guumeysteen haystay oo inta Ingiriiskii nool meesha laga eriyay Talyaanigii kala uu ka qabsaday meesha Talyaanigii ayaa dabatan waxa la yiri magaalooyinka waa la boobay ganacsataduna markaa Soomaalidu reer miyi bay ahaydeen Hindi iyo Carab iyo Yahuudi waxaasay ahaayeen dabatan Hargeysa boobka lagu caseeyay ayuu dukaan baaniyaal lahaayo agta la mariyay oo alaabtii kale la gurtay oo kartoon weyn oo kabrida ku jiraan ayuu xaaj Cabdi Warsame halka ka soo helay xabadiisu halka dambul ahayd isagoo baarkii walwaalaya ayuu la tagay halkii baa lagu furay islaantii baa qeylo ku dhufatay oo afka gooso tabiya reer laawe kaasana jooga rag wax xoolo soo daldalay dahabkeen markeen ayuu qarfiyo soo qaatay inuu qorqoran baa loo jiray deena tixkoodan oo qurux badan buu halka oo Ingiriiskii yar ku durayo iyadana wuxuu sheegay wuxuu yiri ina Umar qaroonaya duunqa la bixi waaye ina Umar qaroonaya duunqa la bixi waaye aduu baaba qalab doonaye qoosay Faransiis sidii loo qabsaday waa kuwa qodaya beeraaye Ingiriisna laga qaad dulku qayda kulahaayeen maqadayn injanankii sidii la isu qoonsaday dayuuraduhu waa qayla doon qoorka marayay qolka wuxuu la meermeerayaa waa nin suuqaxay qooriga Suez caydha waa laga qatoobay ninka maanta qaybtii ku helay qarafna oo maad sagalaftiis waa sadbuul hagaag gabaygaas waxa gabayga inta badan dadku yaqaaneen Cumar Qaroon wariga Suez والله يرحمه marka xalay Cabdigahayr waa la qabto markii gaalkii loo turjubay gabaygii ayuu yiri marnaga tiri dhul baa laga qabsanayo iyo Swiss ka dawarsaday markii la cid qoorkiisu cid wala qabto Swiss waa Masar ma garanaysa marka isaga markaan dhulkaan gumaysan jiray wuxuu leeyahay dhulka uu ka dawarsaday inuu waa bisaarad xayraan u yiri marka waa la qaado maca Swiss baa la geeyo saasay sheegaan bal gabaygii Saynle Saynle libaax wuxuu kamid ahaa soo gabaydiisa waa waranka ayuu Saynlow libaaxuba hadduu sabana gaajoodo Saynlow libaaxuba hadduu sabana gaajoodo saryankiya hadduu aaranku sayri jiray waayo sariga gardooriya hadduu seexda dhirihiisa sanatayn hadduu sida wadaa soomanku ahaado isagoon sadweyn qabin haddii saayid laga doono sanbabadiyo uurkiya hadduu saabka kacisiiyo 70 mayl haddii laga maqlo
iyo suguma guudkeeda saribadaha xoolaa hadduu saacad ku agmeero isagoo saliilyoonayo micida soo feeyey saqda dhexe hadduu reeranagay wada kala saydho surka luqunta suubaacunaa suubun gurigeeda afartii saxnaan jiray hadduu gool sudaha gooyo sadqa male habeenka naftuu sare u qacdaay sadqa male dharaartaa naftuu sare u qaadaaye anna waxaan sariigtaba haddaan saahid noqon waayey dhallinyaro 8 kuna haddaan saanada u qaybsho salaad hore haddaan galo qabiil soobsan jiray geela sadqa male dharaartaa halkaan soodhka mariyaaye haddiise geel su-aashiisa iyo sagar la doonayo isagoo sabiibtii maka iyo sagar la moodayo oo ferowga saarmiyo candhada lagu sureerayo waa kuwa wadaadadu suntada suuqa marayaaye sayidkiina waa kii mulkiyey suubanaan jiraye 70 buu kitaabada yaqiin saayid u heshaaye sakaduu ka maray qaalmuhuu helay sarcay sakaduu ka maray qaalmuhuu helay saraaye haddii samada sare loo raro siiri lagu raaco ama sawjar miidhani halkuu daga ka soo faayo ama badan sacaabiba lahayn laga sokaysiiyo ama seefleydi loo dalbado suuqa xamar joogay 3 waxaan ku maray maalintii layga saanyaday 3 waxaan ku maray maalintii layga saanyadaye haddaan sababtu eeraan ka dhicin laysma seegeene siqiir gowrac baa lagu dhaqay iyo siiga iyo boodhee sodog laga xishood iyo abtiyo seedi iyo aabbo cad dhallaysay seeriga bulkali saayir cad ma leheen dhulsa waxay safaar kogo iyo siiga koru duushay sareenkiiyo burkuba waa madhaan lagu suxuurtaaye nin 8 jirkeedu u curtaa soorma haybsado nin 8 iyo dhowr jiray seeftu lalisaaye intaan madaxu saabuuni noqon wuu sardamayaaye yallaga sasabayaa nin ragii sool walba u jidh baalkaasina ugu hadhimayragii lagu qaatay gii ayuu cidna laga xeshoon haddaan karno raacayno gabaygii yaraa gaba yaroo kaba isaguna iska hawaala waranahayo uu leeyahay tunka caanahan ugu sidiyo tacabki beeneeye tunka caanahan ugu sidiyo tacabki beeneeye marbaan idhi tabaalada adduun toogoynankaaga marbaan idhi rag waystirinayaa tala xumaan guurso marbaan idhi tolkaa nimanka laa la istixgelin waaye marbaan idhi tamaandhada ka beer taarkan dhinaciisa marbaan idhi tukraa imanayee timaha geydhayso marbaan idhi talyaaniga qabo oo tacabiroo jiido marbaan idhi iskaba toobadka intii alla noqo taasaa ugu leedatay markaa leedahay bay ku qabtay toobada cabdirasuul waxay ku maqaalaa waqtigaa gumaystuu joogayba ayaa malaha tartan suugaaneed baa la qabanqaabiyo deetna waxa la yidhi macnee shuruudaha ku xidhan waxaa ka mid a inaan gabayg wax godoba aanu yeelanin oo macnee wax turxaan oo magaranaysa godobaha gabaygaas uu ka maran yahay deetna cabdi baa yidhi baa gabayga bilaa godobtama minhaajkan ka eegay marka waynu kasoo gudbi doonaa cabdi warsamo baanje waynu soo gabagabaynaynaaye gabay jiriqahoo gabaygii cabdigahayre saynleh waxaana la yidhaahdo gabay xayarka marka halkuu cabdigahayr ka dhigay libaax ayaana waxa kadhig wadaad suufiyaho basaarsaday oo laga xiiran waayadii suufiga wareega hadduu sabana gaajoodo suufiga wareega hadduu sabana gaajoodo sarartiya hadduu awlalku siibi jiray waayo sariibadaha xoolaa hadduu saacad ku agmeero sake iyo siyaariya haddii hilib la siin waayo isagoon sadweyn helin hadduu suuqa ka xadreeyo sakadaa dhexdoodiiyo hadduu seexda dhirihiisa ableyduu samaystiyo hadduu micida soo faysto saqda dhexe hadduu reeranagi oo dakala saydho salligiyo barkimadii haddii sabada loo geeyo mawliidka saacado hadduu sare u qaadqaado isagoo samaamuray haddii subixi loo loogo sadqa male
dharaarta cadku sare u qaadaye sadqamali dharaarta cadku sare waa hagaag dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamij suugaaneedkiidii ka imanayay rugta ururinta dhaqanka iyo suugaanta ee Qalesoor waana anigoo Mawlid Maxamed Odawaaya iyo abwaan Axmed Colaad Digaale Axmed Qorane oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. bismillaah.